sidee carruurta lagu bari karaa inay la qabsadaan guuldarrada iyo guusha markay socodka bilaabayaan ilmaha markay socodka bilaabaan isla markii waa la boodnaa markuu dhaco aada ilmaha markay yar yihiin aan wax kasta ugu samaynaa sababtoo annaga dulqaad ma lihin bannaankaa rabaa inaa ilmahaaga wadatid dharka markuu gashanayo looma sugo inuu asaga gashto lo dhaho lugtaan geli lugta midig inta geli inuu asaga u barto lugta bidixtaan geli tanna gacanta midig koofida gashahoo ma dhahno waa u samaynaa degdeg marka waxyaabahaas ayaa keenaya in ilmihii ayna helin su-aasha ay weydiisay guushii guuldarrada ay kala baranin guushii guuldarrada kow alxamdulilah anaga ilmo badan ahayna oo gurigaan ku bari karnaa sooshalka ilmaha inay noqdaan markay isla cayaarayaan oo kaleeto si daacada ilmihii muu dhexdhexaadino haddii la cayaarayo waxaa leeyahay u qalay uu kaa yar yahay waxaa gu dayane markaas ma fahmayaan guusha iyo guuldarrada ilmihii waa in la baraa in waxaan haddaa samaysid waxaanaa helaysid saan haddaa u samaysidna waxaan kaa dhumayaan lama baro lagama sugo ilmihii inay ayaga wax sameeyaan wax kasta waa loo sameeyaa hadda shalay maxaa lahaa meelaan joogay shaqada guriga cunug ka shaqaynayay waalidkiisa ag fadhiyey buugu akhrinaa mina owlen waxaa leeyahay mina cunugii inuu kiciyuu rabaa mina ina waa laga horbooga cunugii uu ka faa'iidaysanaa marka waalidkiis wixii shaqada guriga ayaga uu qaban shaqada oo loo soo diray ayaga uu qabanooyo ma fahmino marka ilmihii in loo daayo waxa ay samaynayeen inay ayaga bartaan hadduu cunugii qalad sameeyo qaladka in loo saxo aana lagu ciqaabin qaladka waxaan aan samay weyse markaas waxay noqonaysaa inay ilmihiiba waxa dhanba ka cabsadaan ay waxna samayna ayna fahmin rayntii iyo reela'aantii ilmaha 5 sano ilaa 6 sano jiro waa xilliga ay rabaan inay wax bartaan inay wax kasta ogaadaan haddii xataa cunuga qalad uu sameeyo ooynaayo waa xilliyadaas ilmaha uu guusha uu necab yahay in laga raayo uu jecel yahay mar walbaba inuu raayo marka waxaa fiican competitionkaas in laga dhigo mid caafimaad leh fahmino oo caafimaad kale waxaan ka wadaa in cunuga mar walbaba uu isku dayin inuu 100% heli karo in loo sheego inay tahay inuu sameeyey waxa uu isku dayey taas ay muhiim ay tahay hadduu maanta samaynin berri uu samaynayo ayna noqon maanta hadday ka xumaatay inuu berri toosinayo fahmino in la bara waay kow taas guushii guulxumaad midda ugu weyn oo ilmaha lagu kala bari karo inuu qaabilo guusha iyo guuldarradana waxay tahay sida annaga aan u dhaqanno oo ilmihii aana ka dhigin wax ma qabatid suuq ma aadid dhar ma dhaqdid kan ma samaysid waxa samayn la'adahay waxaan markaas ilmihii inuu isku dayo adiga inuu maaragtay ku qanciyo uuna kaa xanaajinin waxnaba uu samayninba
uu adigu ku dhowro waalid inuu gaaro heer inuu wax kasta kuu sheeganin inuu maaragtay qaladku uu sameeyey uuna qirin haddii wax uu laga raayay mise haddii wax uu sameeyey uuna kuu sheeganin sababtoo adiga qayliya ka horkeenay marka uu isleeyahay aabbaha ka xanaajinin hooyanaha ka xanaajinin guushiisa iyo guuldarradiisaba uuna kuu sheeganin